haddaba sanadku markuu ahaa 1899 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan uu ogolaansho uga helay cafarta magaalada Obakh in Faransiisku uu yimaado. 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Obakh kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay. hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iideysto uu bilaabay 12 sanadood kadib markii la furay Suez kanaalka waxaana halkaas ay Itoobiya waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen sharikad xagga ganacsiga ah oo ka dhaxaysa labadooda. dhinaca kale haddii aynu eegnana Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas waxaana wasiirka arrimaha dabadda ee Talyaaniga waqtigaasi oo lahaa uu awood u siiyay baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethiopia oo la oran jiray Giuseppe Sapeto in Talyaaniga meel uga helo halkaasi. 1869 ayaa Mr. Giuseppe uu helay magaalada Layada Casab sanadkii ka dambeeyayna shirkad Talyaani ah oo ku hawlanayd wixii maraya Suez kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga Casab uga iibisay cafarta sida taariikhdu ay qorayso. xilligaasi Masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen Turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha Badda Cas. sanadku markuu ahaa 1866 ayaa Turkigu dabadeed Sukayn iyo Musawac oo Eritrea ku wareejiyay dawladii Khadiif Ismaaciil ee Masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha Soomaalida. dawladdaasi Khadiif Ismaaciil barasaabkii u fadhiyay Suudaan ayaa dabadeed sanadku markuu ahaa 1887 booqasho ku yimid isagoo ujeedadaas u socda magaalooyinka Tajura, Zaylac iyo Berbera. mar dambana waxa la soo diray nin la oran jiray Maxamed Jamaal Bey oo calankii Masaarida isagu ka taagay Bulaxaar iyo Berbera. haddaba tallaabadaasi markii Masaaridu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilibku uga iman jiray xeebta Soomaalida. Ingiriisku waxa kale oo ay doonayeen in wadan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida gaar ahaan waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayeen Faransiiska oo tartan ka dhaxeeyay. hase yeeshee Ingiriiska iyo Masaarida ayaa afgarasho ay dhexmartay maamulkii Masaariduna si dhaqso ah ayuu ugu fiday xeebihii Soomaalida. 1877 ayaa Ingiriiska iyo dawladii Khadiif Ismaaciil ee ka talinaysay wadankaasi Masaarida ay heshiis kala saxeedeen oo ay isla ogolaadeen in talada Masaarida ay gaadho ilaa Ras Xaafuun. dawladii Khadiif Ismaaciil waxaase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahdigii Suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday in ay isballaadhiso. intii Masaaridu ay ka talinayeen xeebaha Soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxa ka mid ahaa dekedaha magaalooyinka Berbera iyo Zaylac, noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee Dubaar ee magaalada Berbera waxa kale oo ay dhiseen masaajido. markii haddaba Masaaridu ay ka baxeen xeebaha Soomaalida ayaa Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisiyo oo la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiyay magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa wadanka India. haddii aynu dub ugu noqon haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abyssinia ama Ethiopia waxaana uu la galay heshiiskii la oran jiray Ujialia oo Talyaanigu u arkayay in Abyssinia mustacmarad uu uga dhigayo Talyaaniga. inkasta oo boqorkii Ethiopia waqtigaasi ka talinayay loo oran jiray Melik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa Afxmaariga marka la eego aanay sida iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toos ah ula macaamili karo wadamada dibadda. heshiiskaasi awgii ayaa Talyaanigu u suura geliyay inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii Soomaalida la qaybsanayay. sanadkii heshiiskaasi la galay waa 1889 bishii February qunsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Leonardi iyo suldaankii Hobyo Ali Yusuf ayaa heshiis galay Talyaanigu uu ku ilaalinayo. sanadka dhamaadkiisina shirkadda Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Imperial Bridge East Africa ayaa ka sii kireeyay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore ka kireystay suldaankii Zanzibar. sanadku markuu ahaa 1892 suldaanku waxa uu ku wareejiyay Talyaaniga magaalooyinka Baraw, Marka, Muqdisho, Warshiikh muddo 25 sanadood isaga oo kaga kireeyay 160,000 sanadkiiba waa lacagta liirahe. haddii haddaba aynu dib ugu laabano Abyssinia ama Ethiopia markii uu arkay damcii reer Yurub ayaa boqorkii Ethiopia ka talinayay waqtigaasi Melik waxa waraaq uu qoray dalka awood lahay waqtigaasi jiray sanadkii 1891 warqadaasi waxa uu ku yiri Ethiopia muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana. haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay Afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan dan ka lahayn.
dagaalkii cadwa ee dhex maray talyaaniga iyo Ethiopia sanadkii 1896 ayaa haddaba tirtiray sheegashadii talyaanigu uu sheeganayay Ethiopia inay mustacmaradu tahay dagaalkaasi oo talyaaniga laga adkaaday kadib markii talyaanigu lagu jabiyay dagaalkaasi cadwa waxa uu u howlgalay sidii uu sii haysan lahaa dhulkii Soomaalida ee uu qabsaday nin la oran jiray Major Nerozanium ayaa wada hadalla dhinaca talyaaniga u galay waxaana Ethiopia talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadeynaya dhulkaasi oo heshiis hore Ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894 Ingiriisku uga ogolaaday sanadku markuu 1897 ayay Ethiopia iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmeynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida hase ahaatee Soomaalidu waxay u ogaatay waxa dhacay 38 sanadood kadib markii la isku dayay in soodinta u dhaxaysa la calaamadiyo sheekadaasi marka aynu soo gaadno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhageystayaal hase yeeshee haddii aynu ku soo dhawaano qarnigan dhamaaday waxa Soomaalida uu bilaabmay iyada oo la gumaysto gumaysigaasi 20 sanadood ee qarniga ugu horeeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sida haddaba qiyaasu tahay sayidku waxa uu dhashay bishii Abriil 7 sanadkii 1864 waxa uu ku dhashay ceel laga cabo oo ku yaala meel u dhaxaysa Wedwed iyo Buhoodle 7 jir markuu ahaa ayuu quraanka barashadiisa bilaabay 19 jir markuu uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray intii barashada cilmiga uu ku jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan meelihii uu soo maray ee uu tagay waxa kamid ahaa magaalada Harar ee dalka Ethiopia Muqdisho Suudaan iyo Maka intii uu joogay Maka waxa macallin oo noqday amaba uu ku xidhmay Sayid Maxamed Saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markii uu Berbera ku soo laabtay dhulka Somaliland waxa ugu horeysay dariiqada qaadireeda oo Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani uu ku sameeyay magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq dhulka Soomaalidana waxa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylaci iyo Sheekh Huways Maxamed Sayid Maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiyada waxa uu bilaabay ololo uu Ingiriiska kaga saaray dalka isaga oo huwan dariiqadiisa saalixiyada sanadku markuu ahaa 1899 bishii Abriil waxa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3000 oo nin 1 September sanadku markuu ahaa 1899 waraaq uu soo diray qunsulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsana waxa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyay inay cadaadinayaan islaamka waxana uu cambaariyay kuwa gacanta siinayay warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogol haddii aad nabad doonaysaanna ganax bixiya maalintaasi ayaa nin fallaaga loo qoray 20 sanadood oo uu dagaal kula jiray Ingiriiska Talyaaniga iyo Ethiopia ayaa markaasi bilaabmay haddaba bal aan idinku wareejiyo aw jaamac Cumar Ciise oo inoo sheega sida sayidku uga baxay Berbera ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen Ingiriiska anigoo soo koobaya sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay wuxuu ka bilaabay Berbera sida la leeyahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin baadariyi isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wada suuqa marinaya ayuu arkay markaas yiri war waxa kan waa maxay waa diinteeniyo la soo galay labada dhagax buu qaatay baa la yiri wuxuu ku dhiftay gaalkii meesha joogay oo baadariga ahaa wuxuuna yiri ilaahu maantay intaasan awooda culamadii reer Berbera hadalla la isku jiiray oo dhowr erayo uu sheegay oo yiri baridu waa xaraan qaadku waa xaraan iyo waxyaabo kamida ayay xoogaa yarahe arintii la isku maandhaafay markii dambena xaalkiisii magaaladii waa ku fiday oo magaalada Berbera wuxuu ku noqday nin caan ah oo wax soo wada nin la oran jiray Allahu naxariistay Awgaas ayaa xaalkiisii markuu eegay wuxuu yiri wali ninkan haddaan maanta la qaban meel fog baa laga dooni waa la dacweeyay adigu markuu dareemay inaan magaalada xoogaa yarahe laga jeclayn ama wuxuu ugu soo roobi karin waa ka baxay wuxuu sii maray Dhaymoole iyo Majacase oo ay ka furayd maaragtay muxuu ahaayay 2 iskuul oo baadariya oo ciyaal agoona iyo lagu ururiyay wax lagu baraayay inan buu u yeeray wuxuu yiri adeer magaca wuxuu yiri John baa la yiraahdaa waagi hore maxaa lagu oran jiray Cali sidaas ayuu u sii dhaafay baa la yiri wuxuu yiri maanta matanay joogtaa sheekh buu sii maray Suldaan Nuur Axmed Amaan ayuu wuxuu ugu tagay ood weyne wuxuu sii socdaa maxaa yeelay hadalka ayaan soo koobi dabadeedna qolyahaas habar yoonista
xoolo badanna waa siiyeen aad iyo aad bay u kaalmeeyeen waana la isafgartay wuu ka tegey xoolihii isagoo wata wuxuu tegey meel la yidhahdo qoryo weyn oo magaalada burco koonfur bari kaga toosan halkaa ayuu ka aasaasay horey buu uga gudbay wuxuu usii gudbay xagga bariga buuhoodle iyo halkaasuu tegey adigu meeshaa markuu joogay xoogaha khilaafyo yar baa dhacay dhowr nin oo dhulbahantaa oo garaad cali uu ka mid yahay ayaa meeshaa ku dhintay horey buu uga tegey markii halkaa u egay dad badan baa raacay adduun badan baa raacay rag iyo maaragtay xoola isagoo wata wuxuu u kacay dal ogaadeen malaha khaaqul buu ka baqay xagga maaragtay nogaasha iyo dhulbahantaha in garaad cali dilkiisii wax kaga yimaadaan wuxuu u tegey nimanka la yidhahdo maxamed subayr gurdume meesha la yidhahdo ayuu xaruntiisii ka dhigtay halkaasna muddo ayaa la wada shaqaynayey hase ahaatee xoogaa ayaa markii dambe khalal ayaa dhacay arrintuna waxay ka bilaabatay nin bahgeriya ayaa markii horeeto hore loo diday oo la oran jiray jijiile markaasaa nin kaleeto ayaa meesha lagu dilay layidhi waa xujoobay la oran jiray shida dhabar jilic oo xoogaa boqor ahaa goor galaba ayaa uu raggiisi intuu kaxaystay dibadda ula baxay markuu xaruntii ka baxay meel maraayey wuxuu yidhi war shida dhabar jilic jijiile ma u argalaa guraase xaaji cali ayaa la socday oo aanu markii hore arkayn hadalkii ayaa maaragtay muxuu ahaayey xoogaa magaaladii galay dadkii waa la maqlay war ninka kanu ma aha baa la yidhi nin maaragtay muxuu ahay u socda diin fidinteed iyo wax kaleeto xoogaa yarahee halkaa waa laga diday rag baa u tashaday waxay markaa dooneen nimankii maxamed subayr khaas ahaan reer cabdille inay ninkaa ka takhallusaan oo dilaan shirqool bay u sameeyeen waxay yidhahdeen sayidii intaad noo timi laguma dabaaldegin waa ku dabaaldegaynaa soo baxo marka balliga imow balligii markii uu yimi fardihii baa loogu dabaaldegay markii la rabay in maaragtay muxuu ahay la dilo ayaa nin la oran jiray garaad ahaayo reer haaruun ahaa ayaa u digay wuxuu meesha shirqool baa lagaga wadaaye iskaga bax aw cabaas nin la oran jiray ayaa halkaa lagu dilay dhulbahanta ah oo bahar sama ah dabadeed halkaasuu ka qaxay oo wuxuu u noqday nugaal iyo barbarkaas muddo badan buu hawdkaa ku jiray adigu 2 sano ah jigjiga waa kan colka geliyey colkaa laguma guulaysan dabadeed wuxuu weeraray nimanka la yidhaahdo maaragtay habar yoonis iyo habar awalo dhinaca isku haya galbeed ayuu ka weeraray nin shariifa ayaa u yimi oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa siyaaro xaggee baad ka timi habar yoonis baan la joogaayo nin shariifaan siyaaran ka qaataa sanadkii qaalin ama 2 laysiiya war wejigaa gubaye aan maaragtay muxuu ahaayey ragku siiye xoolaha habar yoonis intaad siyaarada doonayso wax baryayso colkan ka kaxayso xoolo dhaco 100 halaad la tago faafan iyo maaragtay muxuu ahaayey la tag dhulka kan dadkiina degan yahay sidaasuu yeelay col baa lagu saaray habar yoonis waa colka la baxay dayax weerar colkaa geelal badan baa laga qaaday geelii 100 halaad baa laga siiyey baa laleeyahay ninkii la oran jiray shariifka nin baa halkaa ka gabiyey subaxdaasoo wuxuu yidhi col shariifi wacayso calin reere dhacaaya cilmi geel lagu qaado hasiiskiina abuuradow cimri iyo kusimaayo ciribteeda ogaada dabadeed waa guureen oo waxay tageen buuhoodle markaasaa ingiriisku colku soo saaray oo la ogaaday dhaqdhaqaaqiisii warqado badan oo laga helay iyo warar laga soo tebiyey 1901 maalintay ahayd bishii janaayo ayaa dagaalkii u horreeyey ka dhacay meesha la yidhahdo haradhiig intaas wax dawlad u eg diin baynu fidinaynaa ma aha wax dawlad u eg ama alabkeed leh lagama maqal hase yeeshee waxaa ka muuqanayay difaac diimeed iyo in diinta la bedelayo oo baadariyo iyo maaragtay kristan uu dhulka soo gelayo dagaalka gaaladu waxay u taqaan siduu qoray Douglas Jardine Samara xaggana waxaa looga yaqaan haradhiig rag badan baa ku dhintay isku sanadkaas waxaa dhacay afbakayle caana xarigle kurgaraad odagooye fardhidin beerdhiga intaas ayaa sanadkaa dhacay 1900 markay taariikhdu ahayd ilaa 1904 iyadoo taageero uu ka helay Ethiopia iyo Talyaaniga ayaa weerar xoogaa Ingiriisku sayidka ku qaaday 17 bishii Abriil sanadkii 1903 9 sarkaal iyo 189 askari oo kale ayaa Ingiriiska laga dilay
sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo ingiriiska iyo talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo 4 arrimood waata koobaade in uu meel ku yeesho dhulkii talyaanigu xukumayay ta labaad inuu helo xornimo xagga diinta ta saddexaad inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkii isaga markaasi la socday 4 arrimood oo sayidku codsadayba afartaba waxa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yiraahdo ilig bishii March 5 sanadkii 1905 hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan waxa uu ugu kulula dagaalkii xagga afka ee ay xambarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba waxa dabadeed dhacday in ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray hase ahaatee taasi waxa ay dhalisay in qabaa'ilkii la hubeeyey ay bilaabeen inay ku kala aargoostaan utumo hore iyaga u dhex yaalay xilligaasi waxa dhacay wakhtigii loo bixiyey xaaraam cune oo macaluul aad iyo aad u ba'an ay dhacday rasmi ahaan ingiriisku sanadkii 1912 waxa uu ku qiyaasay in maxmiyadiisii 3 meelood meel ahaan dadkii ku noolaa ay dhinteen waxa kaleeto oo dhacday inuu sayidkii u soo xoogaystay taasu waxay keentay in ingiriisku uu bedelo istiraatiijiyadiisii waxa la abaabulay ciidamo uu hogaaminayay ninkii la oran jiray Richard Coffin oo isagu dagaal la galay sayidka bishii August sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yiraahdo Dulmadoobe oo bariga magaalada Burco ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Coffin sayid maxamed cabdalla xasan gabay dheer ayuu ka tiriyay geerida Coffin كوفيلو جيتayaan dunida joogayne adiga jidkii lagugu waday jimiclaaneede jahannamo la geeyo wada aakhiru jahanne nimankii jannu kacay warbay jirin ishalleeyeen kuwaasa naarta joogiyo markaad janaanadii gaadhid siduu eebbahay ku jirrabay mari jawaabteede daraawiish jigraar nagama dayntaniyo jeerkeedheen jigta weerar bay goor barqaca nagu jifeeyeendheen ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jac iyo baaruudadhe weligiisba waa lagu jabshaa jilib dhigduulandheen haddaan lays jigraarayn tolkay laga jilroonaadheen waxay noo junjunteen waa jamaashadiinine anigana jigrey ilaa helay shalay jahaadkeedheen jeeniga hortiisay rasaas igaaga jiideendheen jidhaayaday ilaa dhicin jili cafkoodiidhe fadlan haddii ay tahay marka kugu horreysa aad soo booqato channelka subscribe dheh gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub ee ku xiiso geliya aynu soo dhigi doono mahadsanid halkii aynu haddaba taariikhdii kasii wadaynaa iminkana bal waxaynu eegaynaa mabdicii sayidku uu lahaa inuu ahaa mid diineed iyo inuu doonayay dowladnimo maxaa taas muujinaya waa tahay waxaan mar kale haddaba idinku celinayaa aw jaamac cumar ciise oo arrintaasi bal inoo ifiya marka balgabayadii uu dalka hadda markaa kula hadlayay oo ay lagu mariyey aan wax ka soo qaado waa kuwii wadaniga ahaa ee uu markaa ku sheegayey maaragtay muxuu ahaayey in dowladnimona ka muuqanayso ku dheeraan maayo waxaan ka soo qabanayaa geeraargii kula hadlayey culammada wuxuu yidhi doodna waxaan u leeyahay culammada dafaarka wanan idma doocine idinkaygu diimaye dalka aad ibiiseen baa dacarta igu kiciyey waa markay culammadu ku kaceen oo wax ka sheegeen oo yidhaahdeen ninka kanu meeluu wuxu wado ma naqaan doodna waxaan u leeyahay culammada dafaarka wanan idma doocine idinkaygu diimaye dalka aad ibiiseen baa dacarta igu kiciyeye 5 haloo idin daran dannigiin ka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen dadka aydin raacdeen isna weydin degagubi dilaalkii la siiyena dafna kama helaysaan
ninkii idin daraabaana ajri iyo ducu heli dibna deeqa ay eebbahay debinta saari maysaan diin niman lahayni dabeer caynsan weeye war maxaa dufulayow cadawo ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaa u xilatiin qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicne awyaalow ma diideen jihaadka ma u dareertaan danan iyo seef degta maa ku qaadaan darmaan haad laqooqdiyo doolaab maa u fuushaan wiyilka diirka qaadka bidixda ma ugu dadabtaan doobiga xamaalka dakarka maa ka goysaan idinkaa dalkaba lee dowlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay ereygaa waxaan u daliishanayaa inuu dowladnimo maskaxda ku hayey idinkaa dalkaba lee dowlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay magdiisa wixii muujinayey mar kaleeto kolkii uu samray waayadii dambeeto xaalkiisii uu soo noqday maaragtay gabaabsi wuxuu yidhi haddaan waayey calan layna shiro haddaan waayey calan layna shiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil haddaan waayey ciidoo naqleh iyo ina nugaal daaqo miyaan waayey neefaan xarbada naalla ugu fuulo haddaan waayey ruux iga naxa oo ii nasabo jeegta miyaan waayey naxariis alliyo nebiga jaahiisi marka ereygaa hore oo ah haddaan waayey calan layna shiro tan iyo nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil waxay ku tusaysaa inuu hawe ka qabay maaragtay tan iyo nairobi inuu markaa gacan ku dhigo haddii haddaba sayidku uu dagaalkaasi kulul ee uu galay uu soomaalida ku guubaabinayay inay ingiriiska iska eryaan dabcan guuldarrada ku dhacday halgankiisii waxaa gacan ku lahaa ama ka soo hor jeeday dad soomaaliyeed maxay ku diidanaayeen maxayse doodood ahayd awjaamac cumar ciise aan idinku celiyo oo inoo soo qaada doodii raggii sayidka iyagu ka soo hor jeeday gaar ahaan raggii gabayaaga ahaa ee murtida ku muujiyey doodooda dadka qaarkiis waxay u arkayaan sayid maxamed inuu ahaa haliyey waddaniya oo jihaad galay oo maaragtay muxuu ahayey diinta iyo dalkaba wax u qabtay magaciisiina haddan weli taagan yahay oo ay weli maanka iyo maskaxda ku hayaan dadna waxay la ahayd ibliis la soo diray oo ummaddii laayey dadkii oo dhan kow ka dhigay xoolihii dhacay oo aan horey loo arag marka 4 gabay oo ay ku eedaynayaan sayidka ayaan halkan ka taataabanayaa mid waxaan ka soo qaadnay hobya midna waxaan ka soo qaadnay boosaaso midna waxaan ka soo qaadnay berbera midna waxaan ka soo qaadnay hawdka ciidda ee dhulbahantuhu dego bal 4taa gabay kan ugu horeeya berbera aan ugu horeysiino waa cali jaamac haabiil oo ay xinif sayidka lahaayeen cali jaamac wuxuu yidhi allahayow adduunyada adaa uuntay keligaaye allahayow arwaaxaba adaa qoray arsaaqoode allahayow addoommuhu aday ku irkanayaane allahayow islaamkuma aduu ku acbudayaaye allahayow albaabada adaa ooda oo fura e allahayow ma awdo xaqaad soo iftimisaaye allahayow aduunba u arxama kii itaal darane allahayow adaan ee xoqoon eedna aan geline allahayow awoodtaada yaa loo aqoonsadaye nin kaloo itaal ma jiro adiga mooyaane allahayow middii uur leh iyo tii irmaan dumarka allahayow umulihii nin dilay ubad jaqsiinayey allahayow agoon iyo miskiin aadanaha liita allahayow nimaan odayda iyo habarka oolaynin allahayow min aabi iyo kibir mu'min ku idleeyey allahayow ilaahnimo ninkaan kugu addeecaynin allahayow ibliiska u eg oo aanu garan weynay allahayow mid oogada jirka aad insiga moodo allahayow misana aan ahayn awliyana sheegtay allahayow ninkaa ku ankiree diiday amarkaaga allahayow nin aayadaha iyo diinta ku adeegta allahayow misana aanu odhan siday ahaayeenba allahayow aqoonlaawaha eydu daba joogto allahayow adigu waad og tahay waadna aragtaaye allahayow arooryo iyo goor alliyo leylba allahayow ibliiska khalqigu ka ashkatoonaayo allahayow hanagu eegin ku ergaan nahaye allahayow addoomaannu nahay diinta aaminaye allahayow baryada naga ajiib ku ergaan nahay waxaan u leexanayaa markaa nin la odhan jiray cali maxamuud samantar oo gobolkaa ku noolaa magaalada boosaaso gabayuu mariyey sayidkaa u yeeray baa la yidhi wuxuu yidhi ii imow xoolaan ku siinayaado waa nin aad loo taxgeliyo ayuu ahaa markaasuu gabay mariyey oo wuxuu yidhi waataan afgaba yeerin jiray
yarow ahaantiiye uma yoomo hawd yaalaley hays nin yuururiye ma yagfiyo yaloonkoo cidlo ah yaris nin jiifaaye cusba nebi yacquub bacdalya'si buu yaasafaa yidhiye allena u yeel ducaduu yudayoo yoomadoo kacaye suu rabay ilaahay u yeel samirkii aayuube taniyo nebi yuusuf weliyaa jiro yuu kanaa dhigaye yaa ayuhanebaa laga galiyo bariya yaasiine waxba yaan wadaaddoy ka yimi odhanin yaabuuye waxba yuu isiin qaalmuhuu soo yahoobiyaye nin qabiiladiisii yuu tidhi yuu annii rabine yuu fuuna dhaha taladiisu waa yuuxan roob jirine marka waa diidayoo wuxuu yidhi u tegi maayo agtiisana mari maayo nin kaleeto isagoo jooga magaalada hobya ayaa waxa dhacay dagaal laysku arkay daraawiishtii marka waxay moodayeen markii horeeto inay daraawiishta iska celin karaan kolkii warkii loo keenay oo siday wuxu laayeen iyo hoogga ay dhigeen ayuu gabay ka mariyey waxaa la odhan jiray ninkaas geylan nuur gurey tumaal buuna ahaa nin gabyaaya oo caana oo la og yahay ayuu ahaa wuxuu yidhi hadday maanso caraf leedahay iyo caashaq iyo xiiso awal baan ka soo carafsaday oo cayn walbuu idhiye cajab weeye maantana adduun camalka joogaaye cayriyaamadii shalay haddii la isku caatoobay cadcadkii la laayiyo raggii ciiradka u jiifay caynaan waraarigii haddii la isku caatoobay ee labada ciidan isu timi ceelka ina diinle cara jooga iyo car soo soco hadday camaladaas noqotay nin cisaaro qaba waxaan lahaa waa la caajimiye alla nimanka waa loo cadgoyn cune abuurkiiye nin caddaaday oo caalimah oo madaxu cawsoobay oo ciidan inuu galo kal hore laga calool duubay ninku waa caruusee warmaha ku cadcaddoo dila rabbi iyo nebaa laga cuskaday caadam ma ahayne caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya in wadaadku ceeb hurin hayo oo camalku faaroobay iyo inuu cilmi aan lala oqoon curiyay oo keenay caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya carruur dhalatay oo aan weli guryaha caradna u dhaafin in caloosha laga soo rido oo hadda la cunsiiyo rabbi iyo nebaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya horta naag calooloo jilbaha ciidda dhiganaysa oo waxay carsanlaysaba haddii dumarku soo ciidmo ciyaal aan maalintaa ka hor la arag oo aad ciidagele moodo inuu caawimaa la arki jiray calaf nin haystaaye caanaha kan naasaha ku yaal canuguyuu nuugin cadkana gooya gaalada cad bay camal wadaagaane rabbi iyo nebaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cilmiga noo hayee culamo weydiiya gabagaas ninkaasuna intaas oo calaacalah ayuu wax kaga tilmaamayo oo uu leeyahay waxaas ayaa daraawiishi samayn jirtay iyo wax ka daran calidhuux oo ugu afkharaaraa raggii gabayga u mariyey isagu waa la dooday oo wuxuu yidhi ninkii weligii diintii bannaan daacad ugu sheega dariiqii rasuulkii ninkii diirka uga qaada daw kulama soo baxo cilmiye waa la diriraaye doofaaraduu wadan jiruu dila yidhaahdaaye iyaguna markaasay ku diidi mahayaane bal in meesha lagu doorsan yahay waxuu daliilkiiya duqaydii badnayd ee ku lumay duudsi iyo jeedal dammanaanshaha reer tolkay loogu dawgalay sidii bay u dabaroorayaan daalinkii rogaye dooxiyo hadday nala degaan degalka buuhoodle waxaa lagu durdurin ee bahay uma darraadeene sidii dumar dagaal iyo afxumo uma dulqaateene diyaar uma hadlaan wiilashii dawladda ahaaye daaroodka waa wada dhasheen dir iyo haabkiise hadday deris wadaagaan nin kale dacal ma waayeene alla may iskaga soo durkaan deris ma laayeene gabaygaasna waxa mariyey calidhuux gabayadii uu mariyey oo doodda ahay kula doodayey u marinayey ninka la yidhaahdo in cabdulla xasan waa gabaga ugu hufan inta kaleeto waacay iyo maaragtay muxuu ahayey waxaan la sheegi karin haddii wax la yidhi rag colloobay cay iyo abxumo waa camaladoodii
waxaa dhigaysa intaasna halkaa ka gudubno waxaa daba sii socday dagaaladii dhex yaalay dowladda Ingiriiska iyo sayidka iyo daraawiishtiisii sayidka waxaa qalcadiisa ugu adag ahayd degmada la yiraahdo Taleex waxaa Ingiriisku deetan halkaas ka saaray markii dayuurada uu ku garaacay deetana sayidka iyo wixii ka haray daraawiishtiisii waxay u gudbeen dhulka Soomaalida ee ka tirsan dalka Itoobiya si markaasi dib ay isugu abaabulaan ciidan cusubna ay u helaan waqtigaasi Ingiriisku niman Soomaali odayaal ah ayuu sayidka u diray si loogu soo qanciyo inuu isdhiibo isagan xarun diineed looga sameeyo galbeedka maxkamada hase yeeshee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ergadaasi waa u diiday waqti yar kadib sayidka iyo ragiisi waxa weerar ay ku soo qaadeen qabaa'ilka Soomaalida ee degan dhinaca soodinta Itoobiya dabadeedna iyadoo oo ay taageero ka heleen Ingiriiska ayay qabaa'ilkaas iyaguna ku duuleen xaruntii daraawiishta oo halkaasi si xun ay ugu jabiyeen rag aan badnayn iyo sayidkii dabeetana waxay u baxsadeen Imey oo ku taala dhinaca Itoobiya halkaasi oo ay gaareen bishii Oktoobar sanadkii 1920 dhammaadkii sanadkaasi oo ahayd 21 bishii Disembar ayaa sayidku ugu dhintay Imey kaneeco amaba duray sida taariikhdu ay qorayso waxa da'diisu waqtigaas ahayd 56 jir sayidku markii laga adkaaday waxa uu tiri hadaba gabay dheer oo dardaarana oo dadka Soomaalida uu kula hadlayo aw daahirad qarshe hayno mariyo dalacaad jacayl baad kurtii noola dhirirtane dubaaqiina waa xasaa u galay daara buuxsadae duukama heshaan faranji aada wadhigataane dabin buu idin qoolayaa waydin daagayaaye dirhamkuu idin qubaahayaa dib u go'aysane markaa hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiise markaa xigaana daabaqaada wuu idin dareensiine markaa xigaa dalkuu idinku odhan dunyo dhaafsadae markaa xigaa dushuu edeenka rari sidaan dameeraaye giddigeedba Soomaali baan dayrka ka ahaaye dhaxaan daraawiishta idhi doonta gaaladae dhaxaan askaara uu dalbaday dabada taageene dhaxaan dabkii iyo la hadhay dunyadu wadaaye dhaxaan intaan janaana dilay soo dabaaldegeeye dhaxaan dekeeda uu xamiray duniyo roge ninkii diriirta geeya maalin bay dunidu iishaayeen mantu aan diyaafadiyo guul dareejo eegayay baldayay waxay nagu falin daraf nijaaseedka daraawiishtii Ingiriisku waa uu ka adkaaday hase yeeshee iskuma soo dhaweynin maamulka Ingiriiska iyo dadweynaha dareenkii uu sayidku ka booday ee dugsigii Dhaymoole la odhan jiray ayaa weli jiray sanadku markuu 1920 lix dugsi hoosaad oo la qorsheeyay ayaa waxa u socon waayeen markii la diiday cashuurtii xoolaha laga qaadi lahaa magaalada Burcana DC lagu dilay hase yeeshee waqti dambe ayaa arday Soomaaliya loo diray wadanka Suudaan kuwaasi oo markii dambe halgan u galay sidii dugsiga uga furmi lahaayeen dhulkii Ingiriisku uu ka talinayay halgankaasi waxbarashada ragii hormoodka ka ahaa waxa ay ahaayeen محمود أحمد علي محمد شيري محمد يوسف إسماعيل غاندي عبد السلام حسن سوداني iyo Yuusuf Xaaji Aadan adaba bishii Sebtembar sanadkii 1930 ayaa kadib markii Talyaanigu ku adkaystay ayaa waxa la dhamaystiray calaamadinta soodinta u dhaxaysay dhulka Soomaalida inta Talyaanigu xukumayay xilligaasi Ingiriisku waxa dabeetana uu ku dhaqaaqay in la calaamadiyo soodinta kala qaybinaysay Ethiopia iyo iyaga dhulka Soomaalida oo ay qaybsadeen oo heshiiskaasuna u dhacay sanadkii 1897
si taasi loo meelmariyo guddi labada dhinac ka kooban ayaa walwaal meesha la yidhahda tagtay bishii November sanadkii 1934 haddaba ilaa iyo intii heshiiskaasi kala qaybinaya qabaa'ilka Soomaaliyeed ay Talyaaniga iyo Itoobiya kala saxdeen sanadkii 1908 Talyaanigu waxa uu ku soo durkayay dhinaca Itoobiya dhulka Ogaadeniya waxaana la shaqeynayay waqtigaasi dad Soomaali ah oo ay ugu magac dheeraan ninka loo oran jiray Oldin oo ahaa suldaan ajuuraanka oo awood lahaa lacag iyo hubana Talyaanigu siiyay Itoobiya la fahanteedu dhinaca Soomaalida ma taageero la'ayn waxa kamid ahaa Cumar Samataro oo Talyaaniga ku weeraray ceelbuur sanadkii 1926 una gudbay dhinaca Itoobiya markii dambe goobtaasi dabadeetana waxa isku dhacay ciidamadii Talyaanigu lahaa ee fadhiyay iyo qaar ka socday Itoobiya talyaaniga oo midaba ka diyaar garoobay isagu dhinaca Soomaalida ee uu fadhiyay dhinaca Eritrea dagaalkii halkaasi ka bilowday waxa uu dhaliyay in Talyaanigu si buuxda uu qabsado Itoobiya bishii May 7 sanadkii 1936 dagaalkaasi waxa Talyaanigu ay kaga soo kabteen magaxumadii ka soo gaadhay dagaalkii Adwa ee Itoobiya kaga adkaatay sanadku markuu 1896 haddaba dareemadii xagga wadaninimada iyo fahamka gumaysigu waxa Soomaalida uu ku dhashay marka laga reebo dagaaladii sayidku uu galay ee Ingiriiska uu la galay iyo kuwii Biyamaalku ay kula jireen Talyaaniga markii reer magaalnimadu ay bilaabantay oo la degay magaalooyinka ay ka mid tahay magaalada Muqdisho meelahaasi waxa degay askartii ka soo laabatay ololihii Talyaanigu uu ku qaaday dalka Itoobiya waqtiyadaasi waxa ka bilaabmay dhinaca koonfurta kulamo hoose hase yeeshee waxa Talyaanigu ay cadaadinayaan lacagta ay saareen wixii halis ku noqon kara maamulkooda dhinaca Somaliland dhaqdhaqaaq ka lamid ah ayaa ka bilaabmay oo ay ka dambeeyeen xiriirkii cadan la lahaa iyo mujtamacyadii badmareenka ahaa ee deegaankaasi u dhashay waxa kale oo weli ka sii jiray dareenkii halgankii daraawiishta waxa dardar iyaguna sii galay dadkii wax ku soo bartay Suudaan iyo Cadan dadkii baraarujinta sameynayay xilligaasi waxa kamid ahaa Xaaji Faarax Omar oo kamid ahaa shaqaalihii maamulka Ingiriiska hase yeeshee markii dambe guubaabadiisii awgeed markii loo adkeysan way Ingiriisku u masaafuriyay magaalada Cadan markii uu Cadan tageen Xaajigu halkii ayuu ka sii waday isagoo jaraa'idka wax ku qoray jiray araajina u soo gudbin jiray xukuumadda Ingiriiska uu ku sheegayo mowqifka iyo aragtida dadka Soomaalida sanadkii 1935 dad u badnaa ganacsata yaryar ayaa magaalooyinka Berbera Burco iyo Hargeysa ka bilaabay urur siyaasi waxa xilligaasi soo baxay urur la oran jiray SNS Somali National Society oo ujeedadiisu ahayd horumarinta waxbarashada iyo wax ka qabashada khilaafka qabaa'ilka sanadkii 1937 shaqaalihii maamulka Ingiriiska ee Soomaalida ahaa ayaa urur samaystay la oran jiray Somali Official Union markii haddaba uu bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunyada bishii August sanadkii 1940 ayaa Talyaanigu Ingiriiska ka qabsaday dhulka Somaliland oo Ingiriisku ka talinayay hase yeeshee muddo 7 bilood oo kaliya ayuu haystay Ingiriiska ayaa markaasi qabtay labada qaybeed oo Soomaalida markii dambe waqtigaasi Ingiriisku haystay koonfurta Soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ayaa ka bilaabmay siyaasadeed kii ugu xoog roona uguna muhiimsana waxa waa ururkii la oran jiray Somali Youth Club amaba SYC oo bishii May 13 1943 laga furay magaalada Muqdisho kadib markii muddo 7 laga xaajoonay furitaankiisa iyo dastuurkiisaba sarkaalkii xagga siyaasadda ugu qaabilsana Ingiriiska waqtigaasi halkaasi fadhiyay naadigaasi waxa uu ka koobnaa 13 xubnood dhiirigelinta ururkaasi raggii ugu xooga badnaa waxa kamid ahaa Cabdulqaadir Sakhaawadiin Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaarke iyo Xaaji Maxamed Xuseen 3 sano kadib waxa rasmi ahaan xubno uga ahaa 25,000 oo qof sanadkii 1947 waxa naadigii SYC uu isu bedelay SYL waxaana uu laama ku yeeshay Ogaden Hawd British Somaliland iyo Kenya SYL waxa ay bilowday dugsiyo waxaana la dhiirigeliyay fartii Cismaaniyada oo yeelatay muhiimad wadaninimo aw jaamac Umar Ciise ayaa inooga warramaya waa nimankii leegada curiyay 13 leegada ayaa la yiraahdaa 13 nin weli kama maqal idaacadaha gobolladay ka kala yimaadeen aan isweydiinay ma reer xamar bay ahaayeen ma reer galbeed bay ahaayeen ma reer bari bay ahaayeen 3 nin waxay ahaayeen reer Banaadir Cabdulqaadir Sakhaawadiin Xaaji Maxamed Xuseen Dheere Xaaji Dheere 3daasu reer xamar bay ahaayeen reer Banaadir baa la oran jiray 4 waxay ahaayeen reer Mudug Yaasiin Xaaji Cusmaan Daahir Xaaji Cusmaan Maxamed Xirsi Nuur
cali xasan maxamuud 4 sacna waxay ahaayeen reer mudug 3 waxay ahaayeen shabeellaha dhexe jowhar iyo aagaas ayaan u jeedaaye maxamed cali nuur cismaan geedi raagi maxamed faarax hilowle 3daasuna waxay ahaayeen shabeellaha dhexe 3 waxay ahaayeen gobolka shabeellaha hoose waa maxamed cusmaan baarbe iyo hudow macal cabdille ninna wuxuu ahaa gobolka togdheer koonfurta magaalada burco maxamed xaaji cabdullaahi xayeesi ingiriiskay u tageenoo waxay yidhaahdeen waxaad noo ogolaataa meel kilaab ah oo aanu ku sheekaysanno waxna ku baranno maxaa yeelay dowladdii militariga ahayd oo ingiriiska ahayd ee markaa dhulkaa joogtay ayaa waxay doonaysay niman dhallinyaro ah oo wax la baro oo xafiisyada iyo ka shaqeeya dhibaato kalema kulmina waa u ogolaaday marka waxay soo saareen 4 qodob oo waaweyn qodobka u horeeya wuxuu markii horeba waa ugu jiray wax tacasub qabaliya inaan la sheegin wax kala soocidi inayan jirin wax dariiqooyin ah oo la kala sheegtaa inayan jirin wixii ummadda kala kaxaynaya oo dhan oo tafarruq keenayana in lala dagaalamo xuquuqda Soomaalida meel ay joogtaba in la raadiyo shanta Soomaali ee kala goobaan in la isu keeno isticmaalku meel joogaba in laga hortago oo dhulka laga saaro gobonnimo iyo istiqlaal si lagu gaaro in habkeed loo dagaalamo 5 qodob ayay markii hore dhigeen xillidaasi ingiriisku uu wada talinayay Soomaalida ee dagaalkii labaad kadib Ethiopia waxa markaaba ay ku jirtay in loo soo celiyo reserve area dhulka la yiraahdo oo markaas heshiis ay kula gashay ingiriiska sanadkii 1942 iyo 1944 heshiiskaasi oo ingiriiskuna ogolaaday talyaaniga oo laga qabsaday dhulka koonfurta Soomaaliyana waxa uu ka shaqeynayay sidii uu isaguna ugu soo laaban lahaa halkaasi sanadkii 1946 ayaa wasiirkii arrimaha dabadda ee Ingiriiska Ernest Bevin waxa uu soo jeediyay in danta Soomaalidu ay ku jirto in wadan kaliya loo wada dhiibo taladaasi hase yeeshee waxa ka soo horjeestay oo diiday Ethiopia 3 wadan ee kale ee dagaalkii ku guuleysay iyaga la fahaantooda miisaan arrintaas lama yeelanin 4 wadan ee haddaba dagaalkii labaad ku guuleystay ayaa waxay guddoon ku gaareen in guddi ay u diraan wadamadii Talyaanigu haysan jiray ee laga qabsaday si loo soo ogaado dareenka ay qabaan dadkoodu wadamadaas waxay ahayn Soomaaliya, Eritrea iyo Liibiya bishii January 6 sanadkii 1948 ayaa guddigaasi gaadhay magaalada Muqdisho marka ay guddigu gaareen magaalada Muqdishona waxa ay la kulmeen kala qaybsanaan Soomaalida dhexdeeda waxaana kuwa iyagu taageersanaan Talyaaniga loo dhiiba ay la soo baxeen calamadii Talyaaniga iyo halkudhagiya Talyaaniga hase ahaatee guddi waxa ay codsadeen in SYS-na loo ogolaado inay sameeyaan barnaamij ay ku eegaan dadku sida ay doonayaan 11 bishii Janaayo sanadkii 1948 hase ahaatee Talyaanigii meesha joogay iyo kuwii taageersanaa ayaa iyaga oo hubaysan soo baxaysay ay u kala jebiyaan kulankii SYS oo ay qabanqaabinasay halkaasi dabadeed waxa ka dhacay dagaal ay ku dhinteen ilaa iyo 50 qof oo Talyaani sida ku qoran buugga la yiraahdo A Modern History of Somalia oo qoray professorka la yiraahdo I.M. Lewis haddaba Cabduqaadir Maxamed Aadan oo soobe ku magac dheer oo kamid ahaa ragga muddada dheer iyo ku jiray siyaasadda Soomaalida ayaanu weydiinay kuwa Talyaaniga doonayay waxa barnaamijkoodu ahaa January 1948 waadid qodon iyo 3 Talyaani lagu dilay waadid dhibaato ka dhacday halkii waa la noqday maxay dhibaatadu ka dhacday la isku dilay waxa la isku dilay groupkii watay Talyaaniga iyo group leegada oo qeelinayso oo la masuultooyso iyo iska hor yimaadeen marka qoladan Talyaaniga wadata yahaan horta markaas conference la dhihi jiray waa ku yaadisha hasaabti kala isu tagtay ahayn maxay doonayeen Talyaani doonayeen tan waxay ku doonayaan muddo 30 sano inuu sii hayo inuu yaraan al aqal yani ay la noqdo 30 sano kadib gobonimada la siiyo saasay wateen kontonkii yaa waxa la gooyay November inuu Talyaani meesha joogo 10 sano istiqlaal dadkan gaarsiiyo maxaa keenay in Talyaaniga loo dhiibo markii la warsaday liida Talyaani rabtaan laga waxay warsatay 4 power waxay warsatay 4 power in iyagu hayaan Talyaani wuxuu sameeyay asagana lobbying in loo dhiibo wuxuu ka sameeyay United Nations gudaheeda
markii 10 sano loo dhiibay cabdiqaadir talyaaniga leeydi Soomaaliya adiga haynaya ma jireen ururo iyagu markaasi kuwan hore ee aad sheegtay mooje kuwa markaasi dhashay oo kala qaybsamay oo markaa SYL laftirkooda ka soo horjeestay markaas aniga aan joogo SYL yaan haylaan condition kana annaga dhalinyar nin wax garanay dhab SYL buu ahaa dadka dhan SYL bay hayeen markii talyaaniga loo dhiibay 1947 March حزبية ديجل إمرأة العصاصي ديجل إمرأة مركا قبيل كي حاجة أنت قصة قبيل إيه هرا وحكى لي قبيل عن شيء جنين أو أمة سكاني أو سمعة سكاني أو هالكدجي سواء الوقت إيه وحل بالله إن لو كلا أرض استقلال سواء وحكى صوت ظاهري أنا تيد على كده إذا قبيل لمو أنا وحن ahaa raggii u horeeyay oo iswaacisha ka tagay sanadkii 1951 bishii November haddaba sanadkii 1949 ayaa golihii guud Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa muddo 10 sanadood u xil saaray Talyaanigu inuu xukumo koonfurta Soomaaliya 1948 ayaa Ingiriisku isna go'aan ku gaaray in dhulka Soomaalida ee maanta ka tirsan Ethiopia uu ku wareejiyo sidii ay dhigeen heshiisyadii labada dhinac dhex maray sanadihii 1942 iyo 1944 go'aankaasi oo jigjiga laga dhawaaqay waxa ka dhashay rabshadahaasi oo ay ku dhinteen dad tiradooda ay gaarayso ilaa 25 qof oo Soomaaliya hase yeeshee 23 bishii September sanadkii 1948 ayuu Ingiriisku Ethiopia ku wareejiyay dhulkaasi 29 November 1954 ayaa Ingiriisku heshiis cusub uu la galay Ethiopia oo kaga baxay dhulka la oran jiray Hawd iyo Reservoir goorma ayaa haddaba Ingiriisku u sheegay dadka Soomaalida ah inuu bixiyay Hawd iyo Reservoir ama dadka Soomaalida ay ogaadeen waa kan Umar Artaqalib sanadku markuu ahaa 1954 xisbiga kaliya siyaasiga markaa jira wuxuu ahaa SNL oo markii u horeysay lagu bilaabay SNS Somali National Society markii dambena isu bedelay Somali National League sheekh waa xarunta tacliinta ee markaa lagu barbaarinayay madaxdii maalintaasi berito la oran karay waxaanu markaa dawladdii Ingiriiskeena xukumaysa weydiisanay inaanu soo barano dalkayaga that means Somaliland waanu naqaane Hawd and Reserved area ayaanu doonayna inaanu soo baranaan ku nidhi hanaloo diyaariyo baabuuro iyo sidii aan u tegi lahayn waayahay baa layidhi markaa dabato meelihii reserved area markaa ka mid ahaa ku toosnaa Burco iyo kuwii Hargeysa ku toosnaa iyo kuwii Boorama ku toosnaa ayaan soo wada maray walwaal wardheer qarbidahare dhagax buur markaan soo dhamaysanay ayaanu dib u soo noqonay milmil awaare waxaanu soo noqonay Hargeysa dawladdii markaa Somaliland xukumaysa waxay tiri report soo qora waanu soo qoray report kolka hore waxaanu ka warramaynay uun maxaan ku dhahdaa meelihii aanu tagnay iyo sidii naloo soo dhaweeyey waxyaala caynkaasa laakiin saddex su'aalood ayaanu ku khatinay waxaanu nidhi maxay dawladdu iskuullo uga samayn weyday meelihii aanu soo maray inta ay dhowr intay ka soo kaxeeyaan dhagax buur iyo awaare iyo meelahaas ay amba sheekh amba boorama u keenayaan maxay iskuulle halkaa uga samayn weyday su-aasha labaad waxay ahayd waxaanu aragnay saraakiil iyo askar Ethiopia ah maxay meesha ka qabanayeen ilaa waa dalkayagii su-aasha saddexaad waxay ahayd macnaha reserved area waa maxay Hawd garanay oo Hawd marka Hargeysa la joogo macnahu waa koonfurta Hargeysa laakiin reserved area maxay tahay maxay reserved u tahay nimankii markii ay dawladdu governorkii isticmaalka ahaa ee dawladda mustacmarka ahaa yani wakiilka ahaa markuu warqadii loo geeyey markiiba la dambay la xidhiidheen waxay yidhaahdeen nimankii macallimiinta ahaa waxay soo mareen reserved area dabeet waxayna weydiiyeen why macnuhu waa maxay reserved area maxay reserved u tahay su-aalihii aan weydiinayn oo dhan bay u sheegeen markiiba dawladda Ingiriisku way soo jawaabtay waxay tiri u sheega waktigii baa la gaadhay ay waajib noqotay in loo sheego
heshiis sir ah oo inaga dhaxeeyay haddaan ingiriis nahay iyo dawladda Ethiopia oo la kala saxeixday 1944 taasoo tixraacaysay heshiis kale oo 1897 la kala saxeixday markii xuduudda Afrika la sameeyay 6 bilood ayay arrintii qaadatay intii yani ay isu diyaarinayeen intii say noogu sheegaan maalintii dambe ayaa barastaabka naftiisu ku dhawaaqay 28 February 1955 28 February 55 ayaa lagu dhawaaqo la yiri dhulka la yiraahdo Hawdiya Reserve Area malihidin Ethiopia ayaanu ku wareejinay intaas markay dhacday meel kasta magaalo kasta waxa laga sameeyay mudaharaad ninkii hadlaabana uu ku halqabtay wuxuu yiri Ingiriisku uu khiyaamay waxa dhacday dadkii Soomaaliyeed shacbigii inuu kacay markaas waxa la diyaariyay wafdi la yiri lana loo diro waxa ay kala ahaayeen Sultan Abdurrahman Sultan Diiriye Allah yarxamo Sultan Abdullah Sultan Diiriye Allah yarxamo Sultan Biixi Foley rahimahullah Michael Mariano Abdurrahman Ali Dubbe ilaahay uu naxariisto ayaa lana loo diray sidii aan horeba u sheegnay 29 bishii November sanadkii 1954 ayaa Ingiriisku saxiixa heshiis cusub oo la galay Ethiopia oo uu kaga soo baxay Hawd iyo Reserve Area dhulkii la oran jiray mudaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay Somaliland oo lagu diidan yahay dhulka Ingiriisku uu wareejiyay waxaana markiiba la qaban qaabiyay wufuud in loo diro London iyo New York Abriil sanadku markuu 1956 ayaa wafdi ka socda guddiga baarlamaanka Ingiriiska ugu qaabilsan xiriirka dibaddu ay tageen Ethiopia si ay ugala soo xaajoodaan Ethiopia dhulka la isku haystay ee Soomaalida oo ay doonayeen inay dib uga iibsadaan hase ahaatee uma suuroobin 25 bishii August sanadkii 1956 ayaa boqorkii la oran jiray Haile Selassie ee Ethiopia markaasi ka talinayay hadal uu ka jeediyay magaalada la yiraahdo Qabri Dahare waxaana uu ku sheegay in Soomaalidu ay ka mid yihiin qoyska weyn ee Ethiopia fadlan haddii ay tahay marka kugu horeysa aad soo booqato channelka subscribe dheh gambalelkana furo si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub ee ku xiiso geliyayna soo dhigi doono mahadsanid